والله شاكو يشاكل اختار وأنا كنت أقول تكون واحد نكي هو يدي خصوصي حتى كنا وحكون راح يدور الشاكي ريا راح يصلي وأنا ونفسه قرقال بني آدم يمون waxaynu ku soo gabagabayn doonaa sheekadeenna labaad iyo saddexaad oo ah waa la kala qaadaa waa mar kale anoo idin leh markaa ku soo daashaan siyaasadda hadalhaynteeda ku soo xiqdaan qabyaaladda ee aad ka higtaan idinkoo cadhaysan fiid ku soo intaan aqalideena ku fuulka taagaya caradaha kula dhaceen dumarkii iyo carruurteena soo qaata kitaabka sheekooyinka qorayana ku tasheekay sheeko laba ka mid oo akhrinta idinkoo quslaya saaxib maaliyiin bilaaba haddaba waddanka qaama ee sheekada koowaad halka dhugeyna waxaa leeyahay ninkii دوانيكي نكي بويدي خصوصي أنا كان تسافر كان يشاكون أو كان ودي بابا كي دونتها كوانا سلطان كي دونتها تقارب الدورسة قبلت لا أنت وانتين فرقني لا دولا فري ما رجع هو يحمي هو يلعب بالبعض سيدي يبنى هو يحمي وحبيبي آدم كوريا أما الدمر تابقى قال يكون نقضة وحويا برباريته هوية الدوقات كذا السبر كذا يقول لي التربية ضايع شيء وحتى هاي مركز لوتو وحاول أبقى بسكري أبقى إذا وحكوا الشيسة دعان كتير كذا أيض مولطاء عطاء وعاني ذا صح قرب هذا كاري هذا يوحونا من الدوقات أولا يكسا هويدو كنتي والله ما مارمان نك أن هوية هاي سنينة نرسل وحكوا صوب البارة سر فاضة أو كوكرا ninka hooyo korisayna la nooc maaha ka rajada ku soo kora ilaahay waxaynu uga baryaynaa hooyooyinkooda inuu dembiga dhaafo dembigooda dhaafo nabigeennina wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam jannadkum taxta aqdaami ummahaadkum jannadiinnu waxay ku jirtaa lugaha hooyooyinkii weli maaha lugaha ula hoostooda waa taxta aqdaami ummahaadkum ninka ay ka raali noqoto hooyadii ilaahayna raallu ka noqdaa waa lagu ducaystaa ilaahu raalnimada waalidka waa hooyadii aabahaba ilaahay hay naga raalli noqdo haddaba sheekadani waa maade waxaa la yahay kudhigeeda ninkii hooyadii xusuustay nin danyara murqmaala shaqaale ah wala shaqayn jiray shirkadahan isgaarsiinta mid ka mida magac dhami maymi ragga ilaaliya taawaradana ahaa oo waashmaan ahaa habeenkii ahayd shaqadiisu xilliga uu shaqeeya ayaa waxa uu qaadan jirayna wax iska kooban bay ahaayeen oo ugu filan saddexda xillo cuntadooda isagu labaan cuni jiray quraacdii qadadii casimaba aqoona iyo bahalkan dadku shaydaanku ku qaaday ee liha qaadka oo isna ka qaadan jiray falarkiisa maalin kasta intaaba kamay badnaynba waxa uu shaqaata hase yeeshee galab walba marka uu fadhiyo ee uu raabsanaya bahalkaa meel fadhiisan jiro ma fadhiiso oo rag tolkii u badanaay fadhiisan jiray ayuu wuxuu soo xusuusan jiray hooyadii isagu miyii buu ka yimi oo magaalada markaasuu soo galay hooyadii oo tuulo aan magaalada ka fogeynba joogta ayuu xusuusan jiray hadalhaynteeda ayuu faladhkaa ku dhammayn jiray iyo siduu u jecel yahay inuu mar wax taro wuxuu ku calaacali jiray sidii hooyadii u soo korisay tacabkay u soo gashay iyo maanta meel kadhaca uu ku hayo iyo abaaldarrada oo aanu mar raba siinin wuxuu mar walba ku taalami jiray inuu bishan soo socotaa waxa uu qaataba iyada u geeyo wuxuu hadalhayntaa wadaba maalintii dambe ilaahay ku toosiyey oo qadar ala noqotay inuu tago xafiiskii wuxuu u tegay ninkii isaga madaxda ahaa uu yidhi war arrintaasay haysataa waxaan qaatana waa taqaana hooyadayna waa ii baahan tahay tuulo halkana way degan tahay si aan u shaqaynayeyna baysteen maan siin dee waxaan qaatana waxba igama hadha shirkadda waxaan ka codsanayaa in $100 la amaahiyo waan hooyadii u geeyo oo bilba wax liiga gooyo ninkii uu farxay ninkii uu la hadlayay wuxuu aad baad wanaagsantahay haddaad hooyada xusuusatayba nin fiicanna waa tahay boqolka amaahda ah konton baan kugu deeqaya weli baan kugu dareemo boqolkana iska bixi kontonkaana anaa ku siinaya wuu kacay xafiiska uga soo dhameeyey boqolkii kontonkiina ugu daray waa kaas buu yidhi 2 cishana waan ku fasaxaya u gee hooyada ninkii uu soo baxay xafiiska markii soo boqol kontonkii isagoo haya ayuu is aagay ilaa waa nin tuulo tegayay iyo reerdadu ka maqlaamtay mise dharka uu xidhan yayba waa surwaal caawlan oo cadbaaday iyo shaar ka daran iyo 2 kababo rifrifa iyo cimaamad ciyaal calala wuxuu qortay xalay waxaan tuuladii dhalinyarada ku taqinay intaa wada joogteen wala tagi meesha shaqo helay oo liha uu shaqeeyay horta baadlaha ka rafbeen baadlu tagi 2 kabood surwaal iyo shaar iyo cimaamad halkaa waxaa buuday markiiba $30 waxaa soo hadhay $120 qada wuxuu u yaqiinay ninkan axmed baa la odhan jiray qada wuxuu u yaqiinay bariis jaya oo 4 kun aan ka badnayn beriga
wuxuu maanta qodhay ii xeraday bedel bariiski hilibkiil markuu dhaqa intaa ku tallamayay dharkii lagu soo xidhnayna mid baa dhinaca kaga qabtay saaxiibkeena waryaa axmed maanta xaalkaagu waa bedelay waa adiga soo harad meesha bas walaam soo kaali way soo wada qadaynayna hilibkiilkii baa jig $15 baa halkii laga tufaya waxaa soo haray $100 dheerta jaadka wuxuu qaadan jiray falladhe maanta wuxuu yidhi gubannimo rubacaaga qaado kii la socdayna wuxuu u qaaday falladh sigaarkii iyo sharaabkii iyo wixii markii lagu darayna iyana waxay noqotay 20kii kale 80kii isagoo haysta ayuu raacay baabuur xaajiyada oo 2 shir leh oo tuuladii u baxaya oo cidhiidhiya shirkii baa layidhi halkan waxaa ku fulaysan xagga hore 3 qof iyo daraawalka duwani lacag kasta cidhiidhiya naga daaya anigu waa laa karaysanaya $20 xagga hore keliya ku karaystay 60 baa hadhay tuuladii markuu saa uga tegayna dhalinyaradu ma ku soo yahay axmed baa yimiyey mijin qaado 2 mijood qaado 3 qaado adigu aqaan qaado fiidkii markay tahay ayaa isagoo $10 shirka ugu jirto ayuu midag fadhiyay weydiin waa islaanta heblaayay dhashay tuulada miyay joogtaa markaasaa maya waa tan roobku daayo inankii hebeloo reerkiisu mid heblaaya degan yahay ayay caano u dooratay laakiin way soo noqonaysaa alxamdulilah hay sheeginaya marka dambe wuxuu keenayay aruurtaan baabuurka hebel raacaya ninkii hooyadii xusuustay هتجنا وطن